saddex xaaladood oo dalka ka jira waxaad moodaa xukuumadda Somaliland inaanay midna talo iyo siyaasad midna ka lahayn. mid waa abaarta oo ilaa bishii 11aad xaaladeedu ka sii daraysay. xisbiga wadani xogaal si uu noqdo gobolada bari bishii 11aad buu tagay. ilaa intaana baaqiyo badan baa la soo jeedinayay in la xoojiyo gurmadka iyo taakulada shacbiga reer Somaliland. waxaad moodaa xukuumaddu xilkeedii mala waxay ku wareejisay guddiga abaaraha oo awoodooda aynu ognahay iyo waxay helaan iyo waxay ururiyaan. shacbiga maanta reer Somaliland abaartii si baan bay u haleeshay. shacbiga xoolo way ka dhamaadeen. wax qorshayaal loogu talagalay ma jiro. maanta waxay maalintii kaamamka la sameyn lahaa ee lagu ururin lahaa intii dhaqaajin karaysayna waxay tageen Puntland iyo Ethiopia iyo meelo ka sheeya iyo gobolada kale markii hore wax lagu tuhmayay sida gobolka Awdal. abaarta baan waxa arintii sii adkeeyay oo sii xumeeyay xoolihii oo laga joojiyay dhoofkoodii. sayidada Hargeysa waxa la sheegay neefka adhiga maanta 100,000 oo laana la siiya ama ka yar. ninka xoolo dhaqatada ah wuxuu waayaa mararka qaarkood nooligii uu ku soo qaaday iyo ku baxayay ayaa laga yaabaa in neefka xoolihii noqdo. wuxuu ciidna ma haysto. waxa intaa dheer xukuumaddu sicir bararka wax kama laha siyaasad iyo talo midna. intaa dadku waa qaylinayeen. maanta waxay soo gaadhay in caasimadii la xidho suuqyadii waaweynaa ee Hargeysa oo dadku waxay wax ku iibiyaan ay garan waayeen. taasi waxay keenaysaa markaas abaartii aynu lahayn miyigay jirtaa guryaheena soo gashay oo Hargeysa hadda joogta. waxa la doonayaa in siyaasad la timaado cad xukuumaddu koow way wax kaga qabanayso xaq ugu tala gashay in wax laga qabto abaarta iyo sicir bararka iyo xoolaha la joojiyay intaba. maanta sicir bararkaasi qof kasta oo reer Somaliland noloshiisa ciriiri buu galiyay. wuxuu marayaa oo ku sabaynayaa waxaan la garanayn in 9,000 in 10 ku dhaafa laga yaabaa. cid xukunta ma jirto, cid reguladgareysa ma jirto. taasi hadday sii socotana waxay keeni kartaa gadood in shacbigu gadoodo. kamiiga jooga ka magaalada jooga shacbiga waxaan ugu baaqaynaa marka hore inay istijiyaan. laakiin xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa arrintaas in talo iyo siyaasad cad ay la timaado oo arrintan wax laga qabanayo. haddii kale waxay u ekaan doontaa dee taladu gacmaheena ka baxaysa. qof walba markay dhibaatadu taabato oo kii wax iibsanaya wax iibsado waayo oo kii iibinaya wuxuu ku iibiye garan waayo oo kii abaartu haleeshee macaluushu haysay cid u gurmato waayo. xaaladaasi waa xaalad baan waa xaalad adag. markii horena waxaad moodaysay baaqa xukuumadda ka soo yeedhayay intooda gurmado dadkan inaanay jirin. xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ee xisbil xaakimkii arrintaa waxay kaga mashquuleen in doorashadii la qabto 28 March inkastoo lagu heshiiyay hadda inaan dee la joojiyo. laakiin waxaan u soo jeedinaynaa in shacbiga dareen noqoto xukuumaddiisu in shacbigeeda la dareen noqoto, xisbil xaakimku la dareen noqdo. arrintan aynu wax kaleba iska dhigno oo aynu arrimahan sidii wax looga qaban lahaa aynu isugu tagno gacmaha isugu geysano. anaga xisbi mucaarad ahaan wax kasta oo arrintan kaga qayb geli karayno hadday tala tahay hadday gacan tahay intaba waa ka geysanayna insha Allah. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu abaarta inaga soo jabiyo oo roob ina siiyo. xukuumaddan waxaan ugu baaqaynaa arrintan waxay u baahan tahay in saacado gudahooda lagu farageliyo si aanay gacmaha uga bixin. waan salaamaya dhammaan shacbiga reer Somaliland. waxaan jecelahay in kasoo hore u sheegay baaqaasoo qoraala inaan maantana ku celiyo saxaafadda horteeda ugaga baaqo shacbiga walaalaha ahaa ee deegaanka Buuhoodle ee shaqaaqadu dhex martay in colaadda la joojiyo, in nabadda loo soo noqdo. odayaasha dhaqanka iyo dhammaan beesha dhaqanka ee Somaliland waxaan ugu baaqayaa hawshan inay ka qayb qaataan dejinteeda iyo nabadeynteeda.
xukuumaddan waxaan ugu baaqayaa inay doorkeedii ka qaadato shacbigana waxaan ugu baaqayaa abaar iyo colaad iskuma wadi karo colaadda aan jooji